waxaan jecelahay inaan beenino war been abuur ah waxba kama jiraan ah oo Ariel TV uu baahiyay maanta waxa uu sheegay TV-gaasi in saddexda musharax iyo komishiga doorashooyinka qaranku ay wada fadhiyaan hadda isla markaana natiijadii tirinta codadka laga wada saxiixay saddexdoodaba go'aankii komishiga kama dambaysta ahana caawa uu soo bixi doono ama galabta lagu dhawaaqi doono warkaasi waxba kama jiraan waa war been abuura oo aan sal iyo raatoona lahayn waxaanu ku jirnaa xilli xasaasiya waxaanu ku jirnaa xilli bulshada reer Soomaaliland oo dhan u wada dhag taagayaan natiijada kama dambaysta ah ee komishiga doorashooyinka ku dhawaaqi doonaan saxaafadda guud ahaanba waxa looga baahan yahay wararka ay bulshada u soo bandhigayaan in aanay noqon warar been abuur ah isla markaana aan sal iyo raatoona lahayn waxa loo baahan yahay wararka bulshada loo baahinaya in aanay noqon kuwo kicinaya bulshada kuwo samayn kara isku horkeen ama fadqalala ka dhex samayn kara bulshada dhexdeeda waxa loo baahan yahay inuu noqdo warka ay saxaafaddu gudbinaysaa xilligan xasaasiga lagu jiro inuu ahaado mid xaqiiq ku dhisan oo run ah bulshada reer Soomaaliland oo dhan way wada og yihiin in gacanta lagu hayo dalabyadii ama codsiyadii xisbigu u gudbiyey komishiga doorashooyinka inkasta oo dhowr jeer is-hortaag iyo segsaagba uu ka yimid dhinaca komishinka haddana kama dayranayno oo bulshada uma sheegayno imika in wax walba istaageen ama faraha laga qaaday waxaanu leenahay bulshada reer Soomaaliland u gudbinaynaa ama taageerayaasha xisbiga meel kastoo joogaanba way socotaa arrintaasi gacantana lagu hayaa waanu rajaynaynaa haddii la yiraahdo dhawaan in natiijo kama dambaysa aanu idin soo gudbin doono haddii la yiraahdo inta ka horeysa wararka been abuurka ah ee baraha bulshada lagu soo qorayo iyo website-yada qaarkoodba ee dacaayadaha ah ee waxba kaba jiraanka ah Ariel TV-na uu ku soo biro kamid yahay maanta kuwa wararka ugu waaweyn beenta faafiyay ama ka faafinaya doorashada ha dhageysan baan leenahay wax saameynana yaani maskaxdiina iyo qalbigeena ku yeelanin waana uga digaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba Ariel TV oo ku cusub saaxadda Soomaaliland iyo saaxadda saxaafadda dhawaana soo galay saxaafadda Soomaaliland ama warbaahinta Soomaaliland ee madax banaan ka mid noqday waa looga fiican yahay ama waa looga wanaagsan yahay in uu warar noocaas ah oo aanu iska shaandhaynin uu bulshada siiyo ama uu soo bandhigo waxaanu leenahay beenta u faafinaysaan bulshada reer Soomaaliland maaha mid wax u taraysa waa mid si kala fogeynaysa kawaantooba beenta aad bulshada u sheegaysaana biyo iskaga dara baanu leenahay loomana baahnaa wararka noocaas ee ku tirkuteenka ah ee waxba kaba jiraanka ah in dhagaha dadka ku wasakhaysaan ama u soo gudbisaan way iman doontaa natiijada kama dambaystiina way soo bixi doontaa si sharciyada iyo qaanuunka dalka waafaqsanna waa loo soo wada bandhigi doonaa anaguna bulshada iyo taageerayaasheeda waanu la hadli doonaa waanu u soo gudbin doonaa natiijadaasi waxay noqoto laakiin wararka been abuurka ah ee hordhaca ah ee ka horeeya aan waxba ka jirin waanu ka cudur daaranaynaa waxaanu leenahay annagu cambaareynayna Ariel TV ka noqo oo bulshada reer Soomaaliland ee dhagahooda warka aan jirina beenta aad siisayna xaal iyo raali gelin ka sii waa mahadsantii